بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاستلا فيكتوريا سمبرا خياش ميل باتشوكتين وان كسو نقضي لايف بانك كلها اللي لن يرد سومالي لان ودني حزبك ودني لن يردو waxaan ka iloobeynaan u sheego ku gubaabiyo dhalinyaro yaryar bay ahaayeen maaha in xisbiga siyaasad iyo balaayo lagu mashquuliyo dhalinyarada waxaan oran lahaa wax soo barta wax barta iskuulaad dib ugu noqda jaamacada taga wax badan akhriya journaalada adduunka akhriya idaacadaha dhageysta good politician waa noqon kartiin laakiin hadalkii maanta ee baayiq ahaa wuxuu tusayaa inay dhalinyarada lunsan tahay aad iyo aad u lunsan tahay Somaliland waan garanaynaa tan iyo berigii campaignka ilaa hadda problemada la wado iyo wax walba la wado Somaliland waxay ku shaqeysaa wax la dhaho qayilaad marba reer baa la qayilsiyaa marba reer baa la kiciyaa marka anigu waxaan soo jeedin lahaa qaasatan dhalinyarada u soo jeedinaya You people, you are different. Chinese kat haysatiin ma haystaan odayaashan. Chinese ku wadani uu cirir leeyahay iyo afarta odayaal iyo ina jirde iyo kula qabyal they are patient. Fresh mind ma. Waa dad waqti yar haysto. Calooshoodu shaqaystayaala. Marka xisbiga wadani waxaan kula talin lahaa dhalinyaro baarisal rabaa oo bedesho wax u sheegta oo diidan markuu madaxweyne cirro uu gudoomiye cirro uu diidan yahay inuu dawladda qayb ka qaato dhalinyaradu maaha inay ka fikirto dumiska iyo burburka iyo raggan u kala cararayo oo u shaqeynayo dawladda Soomaaliya inay dhageysato dhalinyarada waxaan u sheegayaa the most gracious people waad inaad ku dayataan raggii soo halgamay mujaahidiinta SNMha waa inaad ku dayataan the most greatest politician inay ciyaal ku dayataan khudbadihiisa dhageysataan fahamtaan wuxuu ka hadli jiray Maxamed Ibrahim Cigaal waa nin ilaa adduunka dhan loo ictiraafsan yahay inuu yahay the only politician of Somalia runtaan ii sheegay Maxamed Ibrahim Cigaal was the most greatest prime minister Somalia Somar wuxuuna ahaa the most greatest president Somaliland Somar wuxuu kaloo ahaa the most wasaaradda ganacsiga markii loo dhiibo wax soo saarka Soomaaliya uu kordhiyay wuxuu ahaa nin la xiray wuxuu ahaa nin la dulmay wuxuu ahaa nin diiday inuu dawladda siyaad bar u shaqeeyo marka rag badan oo talent baa ka dhashay Somaliland waxa kamid ah qaybe oo nin dhulbaanta ah waxa kamid ah Umar Cabdi Khalib waxa kamid ah jaamac yare oo diiday hadda taakuleenta militariga inuu gudoomiye ka noqdo waxa kamid ah Umar yare waxa kamid ah rag badan oo halkan ku soo tilmaami karin ragii mujaahidiintana waxay u badnaayeen Muuse Cabdalle oo lixlay iyo ku jireen marka waxa weeyaan dhalinyarada waxaan u sheegayaa taariikhdu raadiya waa taysatay jid fiican jidkiinu ha noqdo Somaliland first ha noqdo Somaliland first ha noqdo Somaliland first maxay Somaliland first ku noqon kartaa waxay ku noqon kartaa waxbarasho inay dalbadaan dhalinyarada iskuulaad private ama ahna iskuulaad bilaash la helo jaamacado la helo caafimaad la helo shaqo la helo horumarka la horumariyo dekada deep wall kaliimaan warshado la helo pulling foreign investment waddanka loo suubiyo dhalinyaradu waxay u baahan tahay in dalxiis wasaaradda dalxiiska la xoojiyo tourism la suubiyo waa tapetriga Somaliland iyo taariikhdeeda in la arko zeylaca ku taalo magaalo taariikhi ah berbera sidoo kale luqaaye bulaxaar wax walba waxaan mar walba ka hadlayaa aniga Somaliland waxa way taariikhda oo rabaa dhalinyarada inay barato dhalinyarada waxa u banaan micro investment inay sameystaan inay joint stock sameystaan inay cooperative sameystaan ninka dhalinyarada dawlad kaliya inuu sugo maahan waa inuu inventor noqdo waa inuu wax la yimaado nin waa inuu la yimaado maqaayad oo darbi u baahneen wax u baahan oo shaale yar ah oo xeebta ka dhistaa waddanka qoryaha ka baxo qoryo soo gooyaa ka dhistaa bungalows oo ka dhistaa meel lagu shaaheeyo meel shishada lagu cabo meel waxba lagu cabo oo samaysan karaa lacag weyn uma baahno shaqa wax lagu soo saaro adduunka maaha kaliya lacag la tuugsada
this is the man of the world. ilaahay wuxuu suubiyey ibni aadan, wuxuu ka suubiyey ciidda aad maanta dul taagantihiin. ibni aadanaa wax dhisay, ibni aadanaa gaari sameeyey, ibni aadanaa guri sameeyey, ibni aadanaa daaro dhisay, ibni aadanaa arkiteed naqday, ibni aadanaa ciidan naqday, ibni aadanaa general naqday. ilaahay ma uusan keenin dollar ama euro ama yan ama frank oo dadkii laga faraxtay. maya, dadku ciid baa laga suubiyey. ciidda iyo dhulka aan leenahay horumar baa ku jiro. dhalinyarada waxaan u sheegayaa meel xarxaro, meel intaad xarxaratid. waxaan garanayaa Hargeysa maraan tegay 94kii, islaam baa jirtay, geed qurac hoostiisay soo fariisan jirtay shacabka markii laga soo baxo isbitaalka u dhow. islaanta hodheelkan ka soo bixi jiray waan ka quracan jiray. islaanta waxay la timid fikir, beerka geelay soo qaadi jirtay, xaliif xaliif u jiri jirtay, taawad saliid bay ku dubi jirtay, rustical artisanal oo ahaa. waxaan cunayay beerkaa geelkoo delicious ah. I used to eat every day. islaanta maalintii waxay samayn jirtay $250 ay samaysan jirtay lacagta Somaliland ah oo hilibkaa laga cuni jiray oo raqiiska ah. shaqay la timid, fikrad bay la timid, wax abuur bay la timid. okay, waxaa kaloo ay dhalinyarada samayn karaan matcami. waxaa keliya maaha, dhalinyaradu way is abaabuli karaan. waxay samayn karaan publicity, waxay samayn karaan jariidooyin inay qoraan ay dadka u gudbiyaan. waxay kaloo samayn karaan dacaayado dukaamadaha ay dadka u gudbiyaan. maantu waxaad haysatiin smartphone, waxaad haysatiin laptop, wax walbo google gala, raadsada si shirkad loo suubiyo, raadsada restaurant sida loo suubiyo, maqaayad loo suubiyo. anigu Somaliland ilaa hadda kuma arag maqaayad oo tapetsrigi sida Suryaanku uu shawarmada u leeyahay oo awlalkeena kaliya suubisa ma arag. baastay ku darayaan, balaay ku darayaan. waxaa loo baahan yahay knowledge. magaaladu waa inay income yeelataa. inkomka Somaliland waa inay ka muuqataa naasa hablood oo laga sameeyo range, laga sameeyo golf field, waxyaalo laga sameeyo. buurta Sheekh waa Switzerland oo kale. reer Sheekh dhalinyarada community-ga intay is aruursadaan ayay golf club yar suubin karaan, dhulkay xaari karaan, dhulkay beeri karaan. waxaa kaloo jiro Burco, livestock ay macruuf ku tahay. waxay samayn karaan catering, waxay samayn karaan warshada hargeysa ama xoolihii qali karaan, export ay samayn karaan, talaajadooyin ay keensan karaan, way samayn karaan hadday isku tagaano. reer xamarku wuxuu yidhahaa cirbid aruurtay wuxuu noqdaa masaar. 1 shilling Somaliland haddaad aruurisiin waxay noqonaysaa millions. laascanood sidoo kale, ergaabo sidoo kale, kalumaysiga in la soo celiyo, in artisanal fishing la suubiyo, in fishing sport la suubiyo, in diving la suubiyo. lobster magaaladii ka buuxo. marka waxa waaye dhalinyarada idinkaa hurdiin, hurdada ka kaca. waxaan jeclaan lahaa Excel cooperative oo qaaqaanyaasha G3 ah, future new Somaliland ah, inaan qayb ka qaato hadduu ilaahay ii suurtageliyo, dowladda la hadlo, la soo taliyo si dhalinyarada wax loogu qabto. laakiin maaha maraykanka wuxuu yidhahaa God help himself. maaha inuu qaaqaan hadliyo dowladda hadasho. ninka dhibaataysan waa dhalinyarada. asaga waa inuu talab la yimaadaa, asaga waa inuu arji u qortaa wasaaradda beeraha, asaga waa inuu waraaq u qortaa wasaaradda kalumaysi, asaga waa inuu talab la yimaadaa, asaga waa inuu baanka tagaa deyn qaataa. maanta baank baa jiro. marka waxaa weeyaan dhalinyaradii aan ficil ku jirin, dhalinyaradii aa qayilaysa hurdo, dhalinyaradii aa huuhaa ku jirta, dhalinyaradii aa weli qabyaarad ku jirta, dhalinyaradii aa weli garxajis ka hadlays, dhalinyaradii aa weli suweer awal ka hadlays. aad baa niga xumaaday abaqaqaanan leh. hasta la Victoria sempre. mac salaama.